ninkii ka badbaaday markabkii Titanic ee markii dalkiisa uu ku laabtay loogu yeeray fuleygii naftiisa soo badbaadiyay. Sanadku markuu ahaa 1912 markabkii Titanic ayaa safarkiisii u horreeyay ku baxay badweynta Atlantic. Dadku waxay yiraahdeen waa markabka ugu weyn uguna badbaado badan ee la dhisay. In ka badan 2,000 oo qof ayaa markabka saarnaa, qaar waxa ay ahaayeen dad taajiriin ah, qaar kalena waxay ahaayeen muhaajiriin nolol doon ah. Maalmaha hore ee safarka waxay ahaayeen kuwo degan oo farxad leh. Rakaabku waxay ku raaxaysteen muusig, cunto iyo quruxda markabka. Balse habeenkii 14 Abriil musiibo ayaa dhacday. Titanic waxa uu ku dhacay baraf weyn oo badda gunteeda ku yaala. Shilku wuxuu dilaaciyay markabka, biyihii qaboobaana si degdeg ah ayay u soo galeen. Si tartiib ah ayuu markabkii u bilaabay inuu quuso. Argagax ayaana hareeyay dhammaan dadkii saarnaa markabka. Waxayna u carareen dhanka doomaha yaryar, laakiin ma aysan jirin doomo ku filan qof walba oo markabka saaran. Shaqaalihii waxay ku dhawaaqeen haweenka iyo carruurta ha la badbaadiyo. Raggii badankooda way ka istaageen iyaga oo og inay dhiman karaan iyo halista uu leeyahay markabkan sii quusaya. Rakaabka dhexdiisa waxaa ka mid ahaa Masaboni Hosono oo ah ninka ay ku saabsan tahay sheekadu. Ninka kaliya ee u dhashay dalka Japan ee saarnaa markabka ayuu ahaa. Markii hore waxa uu qaatay in nasiibkiisu xirmay, wuxuuna aaminsanaa inuu habeenkaas ahaa tiisii. Laakiin markuu arkay doon yar oo kursi bannaan leh, wuxuu go'aansaday inuu ku boodo oo naftiisa badbaadiyo. Hosono wuu badbaaday isaga iyo 700 oo kale, laakiin in ka badan 1,500 oo qof ayaa ku dhintay badda qabow. Dadkii badbaaday waxaa goor dambe soo qaaday markab kale oo la oran jiray Carpathia. Dad badan oo xasuustii habeenkaas weligood ma ilaawin. Markii Hosono dib ugu laabtay Japan, wuxuu filayay farxad iyo soo dhaweyn, balse dadku waxay kala hor yimaadeen hadallo uu dhibsado oo ay ka mid tahay fuleygii naftiisa soo badbaadiyay. Xilligaasna dhaqanka Japan wuxuu u qiimeyn jiray sharafta iyo milgaha. Wargeysyaduna waxay ugu yeeri jireen fuley in uu naftiisa badbaadiyay. Wuxuu waayay shaqadiisii, wuxuuna noloshiisa inteeda kale ku noolaa booska arrintaas iyo hadallada ay dadku ku soo tuuraan. Balse qoraallo uu sameeyay waraaqadihiisa ayuu ku sharaxay. Wuxuu kaliya doonayay inuu u noolaado qoyskiisa. Sanooyin badan kadib, carruurtiisu waxay shaqo ku bixiyeen in magaca aabahood nadiifiyaan, waxayna muujiyeen inuusan ahayn nin xun, balse uu ahaa nin caadi ah. Maanta dadka si ka duwan ayay u arkaan Hosono. Sheekadiisa waa mid ku saabsan badbaado ee ma ahan mid xun iyo fuleynimo. Titanic weli waa mid ka mid ah musiibooyinkii ugu waaweynaa ee badaha ka dhacay, balse sheekooyinka sida Hosono waxayna xasuusinayaan in taariikhdu ay ku saabsan tahay dadka, cabsi iyo geesinimo iyo wax walba oo ay ahaato. Go'aanka ay qaataan dadku si ay u noolaadaan. Haddii adigoo ka soo badbaaday khatarta ninkan oo kale lagugu tilmaamo fuley naftiisa soo badbaadiyay, maxaad odhan lahayd? Nagu soo biir oo follow Togale Media. Mahadsanid.